soo dhawaada marka la daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku hormaraynaa xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Cuba iyadoo lagu soo waramayo in Mareykanku uu quudareynayo tillaabooyin laga qaado jasiiradda Shuuciga ayaa haddana waxaa soo baxaya war weyn oo la xiriira suurtagalnimada qorshe sidii Venezuela hogaamiyaheedii oo kale Mareykanku uu ku raacsan yahay inuu ku soo qabto madaxweynaha waddanka Venezuela aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani la xiriira xogayaha dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa sare u qaaday hadallada ka dhanka Cuba isagoo uga digay dowladda Havana inay yeelato awood military oo Washington ay u arki karto qatar isagoo la hadlayay dadka wararka fidiya Hegseth wuxuu sheegay in Cuba aysan gelin wasiidalka u dhigaya ciyaar halis gelin karta Mareykanka iyo dulkiisa isagoo intaasi ku daray in tillaabooyin kala duwan ay weli miis ka saaran yihiin mar la weydiiyey in qabashada madaxweynaha Cuba Miguel Diaz-Canel ay weli ka mid tahay ikhtiyaaraadka la tixgelinayo Hegseth waxa uu ku jawaabay in dhammaan ikhtiyaaraadku ay yihiin kuwa miiska saaran hadalladan ayaa yimid kadib markii hay-adaha sirdoonka ee Mareykanku ay ku eedeeyeen Cuba in tan iyo sanadkii 2023 ay ka heshay boqolaal dayuuradood oo ah kuwa aan duuriyaha lahayn ee loo yaqaano droneska wadamada Ruushka iyo Iiraan warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiil aan magacyadooda la shaacin ay rumaysan yihiin in Havana ay heshay in ka badan 300 oo diyaaradaha droneska dowladda Cuba ayaa si adag u beenisay eedeymahan iyadoo ku tilmaamtay isku day lagu doonayo in dalka loogu sawiro qatar amni wasiirka amuuraha dibadda ee Cuba Bruno Rodriguez ayaa sheegay in eedeymahaasi yihiin kuwa aan sal lahayn isagoo ku dooday in Cuba ay xaq u leedahay inay ilaaliso amnigeeda iyo madax banaanideeda xaaladdan cusub ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay socoto cunaqabataynta iyo cadaadiska dhanka siyaasadda ee Mareykanku uu saarayo Cuba taasi oo soo taagnayd muddo 10 sano ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu hadda ka hor sheegay in suurtagal ay tahay Mareykanku inuu abaaro Cuba markuu ka soo jeesto Iiraan waa tahay aynu ka soo gudubno xaggaasi iyo Latin America oo aynu qabanno qaaradda Afrika xaggaasi iyo dagaalka Suudaan halkaasi oo lagu soo waramayo dagaalada ka socda in ay geysteen dhibaato aad u culus haddaba war weyn oo ka soo yeeray mid ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda aynu eegno hay'adda Human Rights Watch ayaa ugu baaqday ciidamada qalabka sida ee Suudaan inay hubiyaan in taliyaashii ka tirsanaa ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ee lagu eedeeyay dambiyada culus aan laga dhaafin in lala xisaabtamo xitaa haddii ay ka soo goostaan kooxda oo ay ku soo biiraan ciidamada dowladda hay'addu waxay sheegtay in dadka lagu tuhunsan yahay dambiyada caalamiga aysan ku helin difaac ama cafis keliya sababtoo ah waxay bedeleen dhinacii dagaalka ay kaga jireen waa intaasi ay ku dartay in shacabka Suudaan la kulmay xadgudubyo daran ayna mudan yihiin in cadaalad markaasi la siiyo iyo in la soo afjaro dhaqanka ciqaab la'aanta bishii May taliya Ali Rizaqallah oo loo yaqaan Safara kana mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa ee RSF ee ka howlgeli jirtay Kordofan iyo Darfur ayaa ku biiray ciidamada Suudaan sidoo kale bishii Abriil General Al-Nur Ahmed Adam Al-Nur Al-Quba oo horey u hogaamin jiray RSF-ta waqooyiga Darfur ayaa isna ku biiray ciidamada dowladda Human Rights Watch waxay sheegtay in ay diiwaan gelisay weerar ka dhan ah shicibka magaalada Al-Fashir oo ay ku jiraan dilal iyo kufsiyo hay'addu waxay sidoo kale xaqiijisay in muuqaallo muujinaya joogitaanka labada taliye intii lagu jiray go'doominta muddada dheer socotay ay imika hayaan hay'addu waxa intaasi ay ku dartay in qawaaniinta caalamiga ah ay waajib ka dhigayso baaritaan maxkamadayn iyo ciqaab lagu qaado cid kasta oo lagu helo dambiye dagaal iyo xadgudubyo culus
iyadoo ugu baaqday Suudaan iyo beesha caalamka inay mudnaan siiyaan cadaaladda iyo isla xisaabtanka waxa loogu yeeray. waa hagaag qodobkaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Maraykanka iyo Iiraan. Trump oo caawa gacanta taagay kadib markii Iiraan ay wacad ku martay jawaabta ay bixin doontaa inay noqon doonto mid aan la maqal oo la arag. qodobadaas iyo kuwa kale iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka iyo wixii warah ee soo kordha intaana u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysi. soo dhawaada markale daawadayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah, warar, fahlooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna waajibiya oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag xaaladda bariga dhexe caawa warweyn ayaa ka soo kordhay. barnaamijkan ka horreeyey waxaan idinkugu soo gudbinay Trump oo ku goodiyey caawa Iiraan in uu ku galgalan doono isla markaasna si ba'an loo duqayn doono. laakiin Iiraaniyiinta ayaa isla markiiba waxay ka soo jawaabeen hanjabaadaha Trump ka soo yeeraya. indhahay u shiteen waxayna sheegeen seefta galka inay kala baxayaan. weliba waxay yidhahdeen jawaabta aan bixin doonaa waa mid aan la maqal oo horey loo arag. Trump isla markiiba dibogorashuu sameeyey, gacantuu taagay. aynu eegna hadda wararkii ugu dambeeyey ee amuurtan la xiriira. hagaag madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa bulshada wuxuu ku sheegay inuu baajiyey ama hakiyey weeraro iyo duqeymo qorshaysana in caawa lagu qaado Iiraan. Trump wuxuu sheegay in go'aanka lagu joojiyo duqeymaha uu salka ku hayo waa si hadalka u dhigaya wadahadallada la yeeshay Iiraan oo gaaray heerarka ugu sarreeya ee hoggaanka dalkaas, isla markaasna la isku afgartay heshiis. wuxuu ku andacooday in heshiiskan ay ansixiyeen Maraykanka, Israa'iil, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Qatar, Turkiga, Bakistaan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Masar iyo dalal kale. Trump ayaa sidoo kale sheegay in cunaqabataynta dhanka badda ay sii jiri doonto ilaa heshiis si rasmi ah loo dhammaystiro, isagoo xusay in goobta iyo wakhtiga lagu saxiixayo heshiiska dhowaan la shaacin doono. ma duqayn doono Iiraan, heshiiskana qof walba wuu aqbalay ayuu yiri Trump, isagoo intaasi ku daray in faahfaahinta saxiixa iyo ogolaanshaha hoggaanka Iiraan dhowaan la shaacin doono. laakiin warkaasi war ka duwan ayaa ka soo yeeray dhanka Iiraan. fariintaasi ka hor ee dagaalku ku joojiyey Trump ayaa waxaa hadlay mas'uul sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan. taliyaha taliska qaatimul anbiya ee xarunta howlgallada ciidamada Iiraan, General Ali Abdullahi Ali Abad, ayaa sheegay in Maraykanka uu ka hadlayo wadahadal iyo heshiis, balse isla markaasna uu wado weeraro, taas oo ku tilmaamay arrin sii horinaysa xasilooni darrada ka jirta gobolka. Generaalku wuxuu sheegay in isburinta siyaasadda Washington ay khatar ku tahay ganacsiga caalamiga, amniga wadamada iyo marin biyoodka Hormuz. taliyuhu wuxuu uga digay Maraykanka in uu wajihi doono jawaab ka adag tii hore haddii mar kale uu weeraro Iiraan. haddii Maraykanku mar kalena soo weeraro, ololka dagaalka uu sii ballaaran doonaa, wuxuuna noqon doonaa mid ka baaxad weyn kii hore, ayuu yiri General Ali Abdullahi. sidoo kale wuxuu intaa ku daray in haddii kaabayaasha shidaalka ee Iiraan la beegsado, mowqifka Iiraan uu yahay in qof walba oo shidaal dhoofiya isna uusan dhoofin doonin oo cid walba ay markaasi badda geli doonto. goor sii horreysay, Mohsen Rizai oo xubin ka ah golaha danta qaranka ee Iiraan, isla markaasna la taliya u ah hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan, ayaa weerar afka wuxuu ku qaaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. qoraal ku daabacay baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Maraykanka sida uu yiri ee aan xasiloonayn uu moodayo in bombooyinku ay ka saari karaan dhiiqada uu isagoo abuuray ee ku dhex jiro, balse gantaalada Iiraan wuxuu yiri waxay sii qoto dheerayn doonaan dhiiqada uu ku jiro. Rizai wuxuu sheegay in Washington ay dooran doonto
inay aqbasho shuruudaha Iiraan ama ay lumiso kalsoonida ugu dambeysay ee caalamka ay ku lahayd. dhanka Mareykanka, taliska dhexe ciidamada Mareykanka CENTCOM ayaa sheegay in marinka Hormuz uu weli u furan yahay maraakiibta ganacsiga, inkastoo Iiraan ay sheegtay in maraakiibta halkaasi aysan ka gudbi karin. CENTCOM waxay sheegeen in la sameeyey marino ammaan ah oo loogu talagalay maraakiibta ganacsi ee ka gudbaya marinkaasi, isla markaasna ay isticmaali karaan dhammaan maraakiibta aan jebin cunaqabataynta lagu soo rogay Iiraan. sida lagu sheegay bayaankan, waxa uu ka soo baxay taliska iyadoo la sheegayo in Iiraan ay si buuxda u sheegtay in marinkaasi uu xiran yahay. waayo xagga Israa'iil marka aynu eegno, arrin la yaab la ka taagan. madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay Israa'iil iyo wadamo badan ayaa aqbalay heshiiskii, laakiin Israa'iil baa soo hadashay, waxay leedahay annaga waxba kama oginba. haddaba aynu eegno sheekadan oo qoray wargeyska The Times of Israel. sarkaal sare oo Israa'iiliya ayaa u sheegay telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay in xukuumadda Israa'iil aysan wax warar ka hayn heshiis kama dambays ah oo dhex maray Mareykanka iyo Iiraan, taasi oo muuqata mid ka hor imaanaysa hadalladii uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sarkaalka Israa'iiliga ayaa ku nuuxnuuxsaday in Israa'iil aan loo sheegin jiritaanka heshiis la dhammaystiray ama la ansixiyey. docda kale, Iiraan weli war rasmi ah kama aysan soo saarin oo xaqiijinaya ama beeninaya hadallada ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka, taasi oo sii kordhinaysa shakiga ku saabsan sheegashada Trump iyo heerka ay marayaan wadahadallada u dhaxeeya labada dhinac. arrinta marka maxay u muuqataa? khibrada waxay leedahay laba qodob bay noqon kartaa arrintan. waa tan koowaad, Trump inay la xumaatay dagaalka inuu bilaabo, bacdama wuxuu islahaa hadda Iiraan u handidid, u cagajuglaysid, indhaha u shidatid, dib u gurashay samaynayaan. laakiin Iiraaniyiintu waxay yiraahdeen haddaa hal tilaabo qaado, 4 tilaabaan qaadayna anagana. gacantu taaga marka Trump saaxiib u keenay. ayagu marka ka aamusan yihiin. dabcan way soo hadli doonaan, waxa dhici karta intaynu barnaamijka ku jiraan ama markaynu ka baxan inay soo hadlaan. waxa kaloo leeyahay arrin kale dhici karta marka. arrinta inay tahay boor isku qaris oo weerarka uu diyaarsan yahay oo la doonayo Iiraaniyiintu inay is dhigtaan. laakiin Iiraaniyiintu waxay ku leeyihiin annagu heegan baynu ku jirnaa sideenaba, maba ka baxnaba heegan. macnaha riishadan qoriga farta ku haynaa wey. har iyo habeen diyaar baana, indhaheennu waa soo jeedaan bay ku leeyihiin Iiraaniyiintu. waa tahay haddaba shabakadda Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay faahfaahinaysaa waxa la isku afgartay. waa dhanka Mareykanka ilaa iyo hadda Iiraan war kama hayno, aynu eegno warkan iyo waxa laga qoray. ila xogogaal ah ayaa shabakadda Axios waxay u sheegeen in mas'uuliyiinta ka socotay Qatar ee ku sugnaa Iiraan labadii maalmood ee la soo dhaafay iyo mas'uuliyiinta Iiraan ay Arbacadii shalay ahayd gaareen qoraal heshiis ah oo ay rumaysan yihiin in Mareykanku aqbali doono. sida ila wareejadu ay sheegayaan, qodobada ugu muhiimsan ee lagu kala aragtida duwanaa ayaa lagu xaliyay wadahadalkii dhex maray mas'uuliyiinta Iiraan iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar. wadahadallada labada dhinac ayaa diiradda waxaa lagu saaray laba arrimood oo muhiim ah. qodobka koowaad wuxuu yahay habka loo soo fasaxayo hantida Iiraan laga xayiray ama lacagaha dibadda looga xayiray. qodobka labaadna wuxuu la xiriiray qorshaha lagu furayo marinka Hormuz iyo markaas kadib xabajoojinta. warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in horumarkan qayb ka noqon karo dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadaha gobolka iyo in la abuuro jawi ku habboon heshiis ballaaran oo dhex mara dhinacyada ku lugta leh colaadan. halkaas marka maxaa ka cad? waxaa ka cad shalay oo Arbaca in isfaham la gaaray, laakiin sababta xalay Trump uu qaaday duqeynta maantana uu hanjibay waxaa lagu sheegi karaa inay tahay inuu iska dhigayo Iiraaniyiinta inuu ku qasbo heshiiskan. laakiin Iiraaniyiintu maalinta dagaalku bilowday ilaa iyo hadda waxay taagan yihiin 3 qodob ayagu. hantidana la ka xayiray hana loo soo fasaxo, dagaalka la joojiyay si dhammaystiran, go'doomintana la ka qaado. 3daas qodob. arrinta nuclearka maba ka hadlayna yiraahdeen Iiraaniyiinta. xagga noo dhiga arrintaas. marka arrintii baa laga wada hadlay. haddii marka la isku afgartay, tara marka dadka Mareykanka iyo taageeradiisa wuxuu ku leeyahay wasilka loo dhigayo inuu u muujiyo isagu inuu leeyahay gacanta sare oo leeyahay Iiraaniyiinta aniga ayaa ku qasbay. laakiin cid walba way ogtahay arrintaasi. maxaa cadaynaya marka? aan eegno la taliyihii hore ee madaxweyne Trump ayaa wuxuu ka hadlayay arrintan. hagaag
la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dalka Mareykanka John Bolton ayaa wuxuu sheegay in hadaladii ugu dambeeyay ee Donald Trump ku saabsanaa in lala wareegayo kaabayaasha shidaalka Iran ay muujinayaan istiraatiijiyadda aan caddayn ma arkaysaa Bolton ayaa telefishinka Al Jazeera wuxuu u sheegay in Trump uu ku jiro dabin isagoo isgeliyay isagoo sheegay in madaxweynuhu mararka qaar uu ku faanayo tillaabooyin laga yaabo inuu qaado ama uusan qaadin wuxuu intaasi ku daray in fikradda ah in Mareykanku la wareegayo xarumaha soo saarista shidaalka iyo gaaska Iran aysan macno badan sameeyeen su'aasha dhabta waxa weeye buu yiri sida Trump uga bixi doono xaaladan isagoo uu abuuray maadaama ujeedooyinkiisu aysan caddayn ninkan waa la taliyihii amniga qaranka Mareykanka madaxweynaha wuxuu leeyahay dabin buu isgeliyay Trump asaga dabinka isgeliyay buu leeyahay macnaha dabin buu isgeliyay sida uga bixi doonana ma garanayo ayuu leeyahay halkaas marka maxaa ka cad saaxiga inuu keenay madaxweynaha Mareykanka laakiin ilaa hadda waa suurtagal inay wax dhacaan waa hagaag imika waxaan u gudbaynaa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh lamaane Mareykanka degan oo isqabay ayaa haweeneyda waxay tiri fariin baan doonayaa kadib markii ninka balwad ay maar ugu weyday laakiin muxuu sameeyay arrin la yaab lu sameeyay haddaba aynu egna sheekadan haddaba sheekadan oo qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa waxaa lagu sheegayaa nin 48 sano jir ah oo lagu magacaabo Eric Bierwazak kana soo jeeda gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka ayaa la xiray kadib markii uu sameeyay arrin la yaab leh waxaana la sheegay ninkan inuu dumiyay gurigii ay deganaayeen qoyskiisa isagoo adeegsanaya cagafta dhulka lagu qodo wuxuu ka carooday baa la yiri dalab fariin oo xaaskiisa ay gudbisay sida wararku sheegayaan dhacdadan ayaa dhacday kadib habeen ninkan la sheegay inuu si xun u soo cabay khamri kadibna xaaskiisa ayaa waxay u sheegtay gurigooda inuu dhamaaday isla markaasna waxay dalbatay fariin Eric ayaa la sheegay inuu ku hanjabay inuu sameyn doono xaalad adag kadibna ayuu ka baxay ayuu cagaftii dhulka qodaysa soo qaatay kadibna sida sawirkeena kaga muuqata wuxuu bilaabay gurigii inuu ku dumiyo waxa yar kadib mashiinadii ayaa waxa la sheegayaa in guriga qayb kasta uu ka geliyay iyadoo waliba xaaskiisa iyo laba gabdhood oo dhalay ay guriga gudihiisa ku jiraan intii lagu jiray wicitaanka degdeg ah ee loo diray booliiska waxa la maqlay codadka duminta guriga nasiib wanaag cidna wax kuma aysan noqon oo dadkii waxa la sheegay inay badbaadeen kadib markii uu burburiyay qaybta dambe ee guriga Eric ayaa gudaha u galay qaybta guriga kale isagoo isku dayay inuu burburiyo kadibna waxa la sheegay in intuu boorsadii qaatay banaanka u baxay booliiska ayaa goobtii yimid kadibna waxa la sheegay inay aqoonsadeen oo ay ka daba tageen iyagoo xabsigan dhigay waxa hadda lagu soo ogay dacwado dhowr ah halka baarayaashuna ay sheegayaan in burburka guriga uu yahay mid aad u daran oo laga yaabo gebi ahaanba in loo baahan yahay gurigaasi in dib dayactir loo sameeyo oo la burburiyo halkaas marka waxa ka cad xanaaq iyo dhibku leeyahay waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii waana ku mahadsantahay daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimca mubaarak